haddii dawladda hirgeliso mashruucan dhammaan guryaha waa la diiwaan gelinayaa waxaana la abuuri doonaa nidaam casri ah oo mideeya magaalada nidaamkan wuxuu badbaadin karaa nolosho wuxuu dedeejin karaa adeegyada wuxuuna fududaynayaa ganacsiga iyo gaarsiinta muqdisho waxay noqon kartaa magaalo casri ah oo la jaanqaadaysa caalamka nidaamkan ayaa ah tallaabada koowaad tani waa fursad aan ku bedeli karno mustaqbalka aan wada hirgelinno nidaamka cinwaanada casriga ah hal dhinac waa jahwareer iyo cinwaan la'aan dhinaca kalena waa nidaam iyo horumar darawal kasta wuu la kulmaa dhibaatadan meel la raadiyo oo aan si fudud loo helin laakiin nidaamkan cusub ganacsigu wuxuu u baahan yahay saxnaan marka cinwaan cad jiro alaab kasta si fudud ayaa loo gaarsiinayaa xilliyada degdegga ah 1 daqiiqo ayaa qiimo weyn leh nidaamkan wuxuu badbaadin karaa nolosho isagoo si toos nidaamkan bulshada waa lafdhabarta mashruucan marka la fahmo muhiimadiisa qof walba wuxuu noqonayaa qayb ka mid ah horumarka mashruucan wuxuu furaa albaabyo cusub maalgashi ganacsi iyo koboc dhaqaale qof kasta oo magaalada yimaada wuxuu la kulmaa caqabad meel la sharaxo laakiin nidaamkan cusub halkood ayaa isagoo si toos mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed waa awoodda mustaqbalka iyaga ayaa dhisi kara nidaamkan